لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد دمان بشير رئيس سوماليلاند يوم الإسلام كباء وحن لي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورصحافات كصوب حي جودان حكومة دقارهان وزارة والدين وقافته ما أنتو تاريخ تهايسد حدي بيش أغسطس لبكرة تضيط بنك بسم الله الرحمن الرحيم اللهم هدله نبي محمد بن ماموس صلى الله عليه وسلم ورصحافات كني waxa uu daba socdaa arinta ka dhalatay kaniisadda taasoo bulshadeena ku abuurtay muran iyo ismaandhaaf xoog badan taasoo dadka iyo dalka midnaba aan dani u ahayn taariikh ahaan kaniisaddan waxa uu gumaystay Ingiriisku ee dalkan ka talin jiray uu Hargeysa ka dhistay muddo hadda laga joogo 70 sano haddaba xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland iyadoo ogsoon isla markaana ku baraarugsan mas'uuliyadda iyo waajibaadka dastuuriga ah ee ka saaran ilaalinta diinta iyo mabaadi'da islaamka iyadoo ku dhaqmaysa sida uu qabo qodobka shanaad ee dastuurka qaranku in aan sinaba loo dhaqan gelin karin wax kasta oo ka hor imanaya shariicada islaamka iyadoo tixgelinaysa talooyinkii iyo baaqyadii iyo fatwadii ay soo jeediyeen culimada waaweyn ee dalku iyadoo tixgelinaysa gaar ahaan dareenka bulshada iyo baaqyada uga imanaya shacabkeeda sidaa daraadeed xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland waxay halkan ku cadaynaysaa kow in aanay jirin wax heshiis ah oo ay xukuumaddu la gashay cidnaba oo ku saabsan arinta kaniisadda laba in kaniisadda iyada ah ee muranka dhalisay ay u xidhan tahay una xidhnaan doonto sidii awalba u xidhnayd muddadii 30 sano ee u dambeysay allah mahadle wasiirka diinta iyo awqaafta sheekh Khayl Cabdullaahi Axmed wassalaamu calaykum